muxuu helayu ku dheelay lama iska baqdo akhlaaqle nin xumi misu dhantaalay badhaa waxay waxaa ka jiro wararka soo baxaya ama wararka soo ifbaxay wararkaas oo ah in uu fanaan Sharma Boy oo furay ama ay kala tageen milyuumaanka ama xaaskii aadka loo wada yaqiin xaaskaas oo Justi ay mar dhow ama ay ubadka ay ugu sitay dhankaas iyo calooshi ubad ugu siday dadyo aad u far badan ama dhanka social media waxa aad waqtiyadii dambe ama saacadihii dambe aad soo ifbaxay warar kala duwan wararkaas oo in badan ama warar aan sugnayn aan dhanka social media ay ku soo baayeen ama warar aan aad loo ahsan ama de warar xaqiiqo aan kala tageen milyuumaanka iyo fanaanka aad loo yaqaan ama dhalinyarada ay aad ku xiiseyso ee fanaan Sharma Boy sida la wada og yahay dadyo aad ku far badan in uu fanaankaas dhankaas iyo dalka Zambia oo dhankaas iyo hesiisa oo ku soo baahinaya laakiin oo Justi iyadana ugu tagay dhankaas iyo magaalada Puntland dhankaas oo isaga ahaan oo ka soo jeedo ama yahay fanaan dhankaas iyo Puntland eelkiisa ama dadkiisa ay ka soo jeedaan meeshaasna iyadana ay joogtay ama isagana ay wada joogeen dadka marka waxay soo baahiyeen ama ay Justi in ay kala tageen sababta uu ugu wada waayo dalkaas iyo Zambia dadka badana ay u arkeen in uu khilaaf soo dhaxgalay ama Justi ay kala tageen laakiin waxa xaqiiqo ah ama xaqiiqada rasmiga ah in ayna kala tagin ama Justi ay yihiin dad isla jooga ama dadkii sida hore isku ahaayeen si ka wanaagsan ama ka qurux badan ay yihiin naag iyo ninkeeda waana wax aad u qurux badan laakiin Justi in lagu soo baahiyo ama dadkii hadii ay kala tagaan ama ay waqti kooban ama saacado ay kala maqnaadaan ama waqti aan isku arkin badana in ay kaamirooyinka ama muuqaalo isla duubaan ama badana ay isla duubin waxa loo maleeyaa in ay kala tageen ama ay Justi ay qof walba dhinaceeda dunida ka gashay laakiin waxa xaqiiqo ah in ay badana isla duubin muuqaalo ama badana ayna ku soo galin dhanka YouTube-ka lamaanayaal badana sida la wada og yahay dadka YouTube-ka ku jiro ama dhanka muuqaalada soo gudbiyo in ay ku soo galaan lamaanayaal ama nin inaagtiisa si ay u helaan views far badan ama bulsho aad u far badan laakiin waxa la dhihi karaa way ka duwan yihiin macnahan dad noocaas ama dad badana isla duubo muuqaalo ama badana heeslo soo qaado waana laba fanaan laakiin way awoodi karaan in ay isla heysaan laakiin sababta waxa waaye in ayna isla heysan badana in uu yahay dhanka fanaankaas kala dhanka raabka iyadana ay badana ay ku hayso dhanka iyo murtida marka waxa la dhihi karaa sababahaas oo kala ay jiri karo laakiin way isla heysi karaan oo heeso murtida uu ku heysi karaa fanaankan uu ku laxamay karaa uu ku muusikay karaa wax walba ha noqotee laakiin sababahaas oo kala iska jiro in ay iyadana tahay dadka badana ku hayso in dhankaas iyo murtida laakiin wax xaqiiqa ama wax rasmiga in ayna kala tagin labadaba